أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا في وسط قلب في الهموم تمسقا. diintana sida aan soo sheegnay adduunyada waa ka ducana waa lagu helaa diinta laakiin dadaal baa lagu helaa inaku laakiin waan beddelay maanta haddaan Soomaalina waxaan leenahay adduunyadu dadaal bay u baahan tahay waa ka adduunyadu u socono waana ka u dhoofeen waa kuwa dhallinyaradeenii badaha iyo saxraaga Liibiya ay u dhamaadeen iska daba wareeg wadannada gaalada bari annagoo joogno ayaan mid baan ku nidhi war ilaahay dartii noo raac 2 bilood oo na raac 40 cisho wuxuu yidhi niman yahow dhowr iyo 20 sanaan joogay buu Yurub Denmark man dhowr iyo 20 sano joogay shaqo la'aan bisaarad wadankana dhawaan soo galay buu haddaan shaqo raadinayaa niman yahow culumoy shaqo ilaahay weydiiyo shaqo yar oo fiican buu annagii buu daalac noo raacayba إلا وأبدهم قري لقصة لسبوكته مركزان هذا قبل كلام تجني من وحان هاللي مركز يسقون يجري ذلك مريكا كوحان كنا ولا هاي تضبيه صد صنو بل تمامرين الرع والنفط هذا سوء إصلاحي وبالآخر هذا درين كيجي درين كي آخر إنير قال إلهي الله سبحانه جوني مركز تضبيه صد صنو ودن كجوجا بولي haddaan maanta dhinta kafan ma haysta buuli waxa la ii sheegay buuli inuu Australia ka qaraxday Australia aanu dhoofayaayo qola nooli ururinaysa culumay ducada igu daray buuli haye waa kugu darnay socodna waa ka soo noqonay dad annagoo Dubai habeen marayna airportka Dubai ayaan islaan waxaan aragnay hooyo iska warrama ma Soomaaliyeed baa tahay Soomaaliyeed baana ma sha Allah geed ka timid hooyo inamadan wiilashan Australia ku dhasheeno wadanka noloshiisa ma fahmi weyno dalkoogiyo Soomaaliya ayaan ku celinayaa bay igu tiri marka ii soo duceeyaa kii dalka joogay xaguu socdaa wuxuu ku ducaysay Ilaahu Yurub mari gali kii Yurub joogay Ilaahu maru Mareykan gali North America gali kii Mareykan joogay Australia ay gaarsi kii Australia joogayna noloshii waan garan weyno he Soomaaliya ku socona firaaq baan haysanaa dad meel fadhin kara ma nihiinaku baa yidhi dayax gacmeedkii u horreeyay la diray buu yidhi waa kaftan 2 nin baa loogu tegay buu dayaxa dul fadhida Soomaaliya hindigii baa lagu yidhi meesha maxaad ka qabanaysaa markaasuu yidhi ganacsi baan ka yar gelinayaa buu waa dhul cilaa Soomaaligii baa maxaad ka qabanaysaa transit baan hay nabiga ku salli xagee markaa u soconaa bal sheega war meeshaan ku fiicannahay inaku waa diinta weeyaan insha Allah dhahada diintu dadaal bay ku iman adduunyadana waa inta Ilaahay noo qadaro diinta dadaalkeega insha Allah ina ka qayb qaadano soo kulligeen diyaar ma nihin Allah inagu anfaco saad noo soo dhaweeysan Allah inii soo dhaweeyo